waa munaasabad tababar loogu soo xirayay ku dhawaad 500 oo isugu jirta saraakiil iyo askar ka mid noqonaysa ciidamada Commandos-ka Gorgor ee dawladda Soomaaliya oo maanta lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho. ciidamadan ayaa lagu soo tababaray dalka Turkiga waxaana munaasabadan ka soo qayb galay taliyaha ciidamada xoogga dalka, wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya, safiirka dawladda Turkiga iyo saraakiil ka socotay labada wadan ee Turkiga iyo Soomaaliya. ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda Turkiga oo runtii aan halkan ka dareemi karno miraha ay beerayaan. waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo ciidamada xoogga dalka Turkiga oo ugu horeeya taliyahooda xoogga, saraakiisha kale ee halkan kuliyadan Turkistan ku sugan ee runtii halkan ka soo saaray saraakiil xigeyn alifley iyo dabley aad u qiimo badan, qaybna ka qaadan doona gudashada waajibaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyadda ay u qaadeen qaranka Soomaaliyeed. waxaan kaloo rabaa sidoo kale aydan inaan u mahad celiyo saraakiisha dugsiga tababarka ee Isbaarta ee ayagana runtii muddo 3 bilood ah ee ururka afraad ee maanta hortiina taagan ee aadka u quruxda badan, ayagana sidoo kale tababar wax weyn ka bedeli doona tayada iyo tababarka iyo aqoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halka ku soo siiyay. sidoo kale waxaan rabaa ayadana inaan mahad celiyo madaxda qaranka oo runtii ayagana noo suurta geliyay fursadahan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u soo dhismo qaato tababar aad iyo aad muhiim u ah, qayb ka qaadanaya dib u dhiska dalka, qayb ka qaadanaya amniga iyo xasiloonida dalka, qayb ka qaadanaya xaqiijinta ilaalinta iyo badqabka xuduudaha dalkan oo leeyahay bad cir iyo dhul. ma jiraan qofku wax ka qaalisan dhiiggiisa ee uu bixi lahaa. waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo ciidamada aadka u qiimaha badan ee quruxda badan ee maanta hortiina taagan waxay go'aansadeen inay dalkooda iyo dadkooda u bixiyaan dhididkooda iyo dhiigooda, ilaaliyaanna badqabka iyo xurnimada dalkan. sidoo kale inay xaqiijiyaan qof kasta ee muwaadin ah ee Soomaaliya gurigiisa inuu nabad ku jiifto, nabad ku ganacsado, nabadna uga soo tooso. intaas kadib wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo madashan ka hadlay ayaa bogaadiyay ciidamadan loo soo xiray tababarka. loo jira adow gudaha oo adeegsada maskaxda ka lumiya jiilkeen yare una baahan in laga difaaco. runtii waxaan rajaynayaa inay ka difaacaan adowga dibadda iyo midka gudaha. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hooyooyinka iyo aabayaasha oo xaqiiqdii u oggolaaday wiilashooda iyo gabdhahooda in ay u oggolaadaan inay difaacaan dalkooda ee dhiigooda, ardigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda ay u bixiyaan. waa mahadsantihiin, aad iyo aad u mahadsantihiin inaad maanta nagala soo qayb gashaan ee wiilasha aad dhiirigelisaan. Maxamed Amiin Cabdirasaaq Aadam, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.
ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika, Asia, qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin